nidaamka gantaalada ee ka tirtiri karo magaalooyin dhami khariirada waxa uu ridi karaa 240 gantaal 2 daqiiqo gudahood. Shirkadda Roketsan ayaa u samaysay waddanka Imaaraadka Carabta. Shirkadaha difaaca Turkiga ayaa sii wada horumarinta wax soo saarkooda loo dhoofiyo dawlado kale. Waxaa ka mid ah shirkadda Roketsan oo soo saarta madaafiicda iyo gantaalada oo ku guuleysatay muddo 2 sano liiska joornaalka Defense News oo ku takhasusay wararka difaaca caalamka. ayna ku jiraan 100 shirkadood oo ugu magac dheer adduunka. waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo shirkadda soo saarta waxaa ka mid ah gantaal tuurayaasha loo yaqaan Jabari, kuwaas oo shirkaddu u samaysay kadib codsi uga yimid dawladda Imaaraadka Carabta. mawsuucadda Guinness ayaa ku dartay 2018 gawaarida militariga kuwii ugu weynaa ee gantaal tuurayaal ah. Jabari wuxuu ka kooban yahay 4 bar gantaal nooca 122, wuxuu 2 daqiiqo gudahood tuuri karaa 240 gantaal, halka toogashadiisu uu gaarsiin karo masaafo dhan 37 kiiloomitir. waxa uuna asiibi karaa bartilmaameed dhan 4 kiiloomitir oo iskuweer ah. laga soo bilaabo 2003 Roketsan waxay ka hirgelisay Imaaraadka mashaariic tiro badan iyadoo ku bilowday gantaalada loo yaqaan 122 codsiyo u yimid kadibna ay sii horumarisay wax soo saarkeeda. sidaasi ayuuna ku yimid gantaal tuurahan Jabari. waxaa lagu soo bandhigay markii u horreysay carwada militariga dawliga ee caasimadda Imaaraadka Carabta Abu Dhabi sanadu markay ahayd 2013. shirkadda Turkiga ee Roketsan ayaa ku soo kordhisay warshadaha difaaca Turkiga muddo 30 sano ah, guulo waaweyn iyo hal abuur difaaci ah.